بسم الله الرحمن الرحيم. تأملات قرآنية. حكى لنا مانتا المسؤولية. نبي الله موسى عليه السلام سو أهلكيس للصعدة قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبر أو أجد على النار هدى إلى السوق هل كان السوق وحان دريما دب هلكاس كأركايا إن حيث دبكاس إذن سوق هذا هنون يوميل أمرنا كهلا wax i tawjiihiyo wax ii sheego marka insaanka fiir nabiga muuse ehelkiisii inta jooga wixii qatara asaga dhabarka u dhigtay hadii marka halkaas wuxuu kala kulmo iyo wixii soo wajihi lahaa sida ninka ragga fiirsi gurigiisa u difaacdo reerkiisa u ilaashado inta joogu yir adinka ha bixina ana halkaas aadayo wixii aan kala soo kulman ana idin keenay marka taa waxa way marta guriga iyo ehelka qofka inuu ilaashado qofka gurigiisa ehelkiisa inuu ilaashado mas'uuliyad dareemo caqabadaha iyo duruufaha iyo waxyaabaha khatarta oo isaga dhabarka u dhigto reerkiisana ay aamin u noqdaan reerkiisa ilmihiisa iyo gurigiisana isugu yar halkaan ha dhaafin asaga baxay kaligiisa baxay markaasuu waxay ahayd meeshii aaday marka halkaas wixii uu imaaday halkaas ayaa wixii uu imaaday marka waxa way qofka ragga inuu mas'uul yahay oo qawaam yahay oo mas'uuliyadiisa reer gurigiisa uu ilaashado ayada kale inta dul taagan waxa waaye يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين ولا ليه يوسف حده عنق يركا أبدق والله قصة ويله أنا جبوسك سقفنا قالي أسجى نسيتها يوده ويكد قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قفان دم بنقل مكحين ثاني ولا وحيا بعد تذكر الصوماليين ده كان هيستو qof markuu qof dilo ama qof dhibaato u gaarsiiyo dadkiisa inta la qabso qof dadkiisa la soo qabto ha loogu aaro Allah anaga kuma xad gudbayno qof aan waxba naga galabsanin markaas dulmiyan sameynayna marka qofka walaalka qaladku galo ama walaasha qaladka gashay ama dulmiga qof kale bari ah oo dambi galin in lagu xukmiyo waa jariimo waa dambi weyn xajaaja waxa la sheegaa ninba maxay ahaato kafakaday oo ka maxay ahaato dhibaato geystay cararay walaalkiisa la soo qabto asaga maxay ahaato ayadaan u aqriyay bada aan maxay u heestiin walaalkii qalad ku galay iyo dambiga ka galay asaa idin ka galay laakiin aan idin kama galay adiga walaalka daadan weyn adaan ku qabsanayna ayadaan ku dul aqriyay ani dambi aan galma dush iga saaraysaa halka nabiga Yuusuf uu diiday in maxay ahaato walaalkiis wiilkiis kala sii daaya kan kale intana la iska dhaafo oo dhahay maya oo dhahay qof aan waxba naga galay ma qabsanayno oo dhahay marka maxaan igu heysteen inuu yahay markuu ayadan ku dul aqriyay xajaaj marka uu qushuucay wuuna sii daayay wuuna fasaxay marka xaway wala tazir waziratu wuzr ukhra qof kale dambigiis lama saari karo qofkan duu jariimo galo oo shakhsi ahaan ka galo ilaahay bani aadamka shanta farood lama siibin qalad qofkan gal laba qof wada xalay qofna qof wanaagsan uu yahay qofna qof mujrim weyn oo umada aysan ka amaan helin shartiis uu yahay marka bani aadamku ma sinno ilaahay ma simin marka qaabili habiib nabi aadam wada dhalay وقابل أهل الجنة نقضي أهل غير نقضي قليل من مجرم قاتل وحدلو نقضي مركا قلد قفك لكاقل قفك لدوشها كسار قلد قفك لكاقل قفك لأنتو أنكاقل دوشها كسار هانكو حكمين قفك أسكال أنتو واحد ويهي لا لو غفوضك كلا دون إلهي كلا أبورو أسوسين وأسمي سنين maxay ahaato marka uu qofka qaladka qofka kale qaladkaas asaga u balaga la xisaabtami karo laakiin qofka kale inta aad dusha laga saarin wallahu a'lam